ugu yaraan 5 qof oo ay Soomaali ku jirto ayaa dhintay iyadoo ilaa 4 qof oo kale cusbitaalada la dhigay kadib markii mid ka mid ah daaraha ku yaala xaafadda Azeer ee Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu dab ka kacay Arbacadii shalay. Daartan waxa degan dadka da'da ah iyo dadka kaligood nool. Maxamed Cabdi Saldheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Minnesota. xaafadda gubatayna ay ka mid tahay deegaanka isaga laga soo doorto. Maxamed Nuur ayaa marka hore ka jawaabaya in tiradii khasaaraha ay wax iska bedeleen. wax isbedel oo ku yimid ma jirto. 5 qof oo ku geeriyootay iyo dhowr qof oo 4 qof oo dhaawac gaaray. dad qaar kamid ah waxay weli ku jiraan hospitaalka ku jiraan. intaas hadda saanan ognahay. dadkiina waa gurihii baa lagu celiyay. khaas ahaan dadka maaragtay degan dabaqyada sare iyo inta ka hooseysa meesha dabka ka bilowday. waan gartay sidaan ognahay dabaqa 14aad ayaa inuu dabku qabsaday la soo wariyay ilaa iyo hadda sababta dabka dhalisay ma la ogyahay. baaritaan baa hadda socdaa oo xagga ay u qaabilsan yihiin qolada baaritaanka dabka. waxaan ka warsugaynaa inay noo soo gudbiyaan runtii siriga iyo public housing baa ka shaqaynaya. waan arki doonaa maaragtay sababtii keentay laakiin sida loogu sheegay waa mid oo qadar ahaan u dhacday maaha si oo qof oo qasad u sameeyay dabkaasi inuu meesha ka dhashay. waan gartay hadda ka hor dab baa ka dhacay isla goob u dhow meeshaas oo meelihii ku gubtay waxaa kamid ah masaajidka Daarul Hijra. marka maxaa soo celcelinaysa leedahay dabkan gaar ahaan deegaankaas? tii hore waan garanaynaa oo gaas baa meesha maaragtay ka dilaacay. midaan dambena ma hayno ilaa haddasan sababtii keentay dabkan laakiin waxaan rajaynayaa in la helo sababtii. midda kalena waxaa weeye waxaa loo baahan yahay baaritaan oo dhab ah oo si looga hortegi lahaa dhibkan. run ahaantii gurigaas waxaa degnaa dad waayeel ah oo sida lagu sheegayay maamo oo kamid ah oo meesha ku geeriyootay 24aad bay degneed. haddii tababar ay jiri lahayd waxaa dhici karta in la dhaha meeshaada joog. intay soo degaysay bay maaragtay wadadii dadkii soo waday ay ku kala lumeen. qiiqi baa meesha ku badnaa. taasaytana waxay keentay geeri bay keentay. taasna waxaa waaye waa musiibooyinka kamid ah si looga hortegi lahaa markuu dab dhaco. tababarkaas wixii sharci laga bedeli karana hadday jiraan hadda gurigaas qaybaha kamid waxay leeyihiin biyaha dabdamiska oo ku xiran guryaha. qaybo kamidna kuma xirneen. in la fiirsho sharciyan ahaan ma loo baahan yahay guryaha sarrifta dheer oo dadka waayeelka ama dadka xanuunsan ay degan yihiin ama qof walba uu degan yahay in laga badbaadiyo oo dabkaasaysa oo imaanayo si maaragtay loo yareeyo dhimashada iyo dhaawaca weyn oo hadda ka dhacayo. waan gartay waad sheegtay in hooyo Soomaaliyeed ku dhimatay tirada guudna waa 5 sidaad bilowgii sheegtay. ma la ogyahay inta qof ee Soomaali ka ah dadka dhintay? run ahaantii ilaa 3-4 baa la ogyahay oo inay yihiin dad oo Soomaali ah. hal qofna waxaan u malaynayaa 5taas kamid ah inuu yahay qof oo maaragtay Oromo u ahaa. sidaa darteeda waan sugaynaa warbixinta guud in loo soo gudbiyo laakiin waan ognahay dad Soomaaliya meesha ku geeriyooday. waan gartay waxaa jiray in maamulka deegaankaas dadka maamula shirkadda maamusha iyo dadka Soomaaliyeed ama dadka degan si guud meeshaas in mar uu buuq ka dhex taagnaa oo dhinaca elevatorada ama dhinaca maaragtay dayactirka guriga waxyaabahaas oo dhan inay jireen inkastoo sanadii dambe horumar la sameeyey. arrintan dabkan oo kale ma ka mid ahayd waxyaabaha ka dhex jiray maamulka dhismaha iyo dadka degan? arrintan waa ku cusuban tahay oo sararta qaadeen uu dab hadda ka dhaco. muddo dhowr iyo 20 sano bay bulshada Soomaaliyeed degneed xaruntaas iyo agagaarkeeda. tanna waa mid musiibada ugu horeysa oo sar dheer oo sidar ku taala 25 dabaq building ah inuu maaragtay dab qabsado. macnaheedu waxaa weeye wax meel kasta dhibaatada kaaga imaan kartaa. dabkaasaytana wixii sababay iyo si loogu badbaadi lahaa iyo sidii loo ogeysin lahaa dhowr sar baa meesha ku yaala ilaa dhowr iyo 10 sar baa ku yaala. sidii hadhow si loogu badbaadi lahaa baa inoo muhiim ah. wixii sharciyan ahaan oo gobolka u qaabilsan waa mid aniga maaragtay aan xoogga saarayo laakiin arrintan dowladda hoose baa mas-uulka ah iyo baaritaankeeda. siriga iyo public housing kana waxaa waaye waa wada shaqeeyaan. waxaan rajaynaynaa si guud ahaan
aan la nimaano nidaam oo arrintan loogu hortegi lahaa. hadalkaasina waxa uu dambeeyay xildhibaan maxamuud nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Minnesota waxa uu rabayay Maxamed Cabdi Sandere.